Jaceylkii iyo caqabadihii uu la kulmay Guurka Kajol iyo Ajay Devgan. मेरे डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे कि शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है ना। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ। छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे? अब मुझे ये डिसीजन भी मुझे ही लेना है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, एंड आई एम रेडी टू गेट मैरिड एंड आई एम गेटिंग मैरिड। ही डिडंट टॉक टू मी फॉर अ वीक. Halkani waa deersame iyo anigoo Ahmed Deer Xasan. Atariishada Bollywoodka ee Kajol ayaa sheegtay in aabbaheed uu ka carooday markii uu maqlay warka guurkeeda sababtoo ah wuxuu aaminsanaa inay weli aad u yar tahay. Markii atariishada Kajol ay guursatay atoorihii ay wada shaqaynayeen ee Ajay Devgan, waxaa la aaminsanaa in muhiimadda aktarada guursaday ay hoos u dhacday waagaas. Waraysi ay siisay BBC-da Hindiya ayay Kajol ku tiri fikradda muhiimadda ay leedahay atariishada xaaska ah ayaa ku jirta maskaxda atariishooyinka laftooda, inkastoo fanaaniinta sida Sharmila Tagore, Saira Banu, Hema Malini ay horumar weyn gaareen guurkooda kadib. Kajol oo ka hadlaysa sida uu aabbaheed uga xumaaday go'aankeeda guurka waxa ay tidhi waxay ahayd arrin aad u weyn in aabbahay aanu ila hadlin sidii buur soo dhacday. Laakiin markii dambe waxa uu yidhi go'aankaagu wuu fiican yahay, laakiin waxa uu si cad u muujiyey in aanu ku faraxsanayn. Kajol waxa ay sheegtay in aabbaheed uu ku yidhi maxaad hadda u guursanaysaa, aad ayaad u yar tahay hadda. Waxay tidhi waxaan ugu jawaabay 10 sano ayaan shaqaynayay, sideen u yarahay, hadda go'aanka guurku waa inuu kayga ahaadaa, waxaan u malaynayaa inaan diyaar u ahay inaan guursado, kadib ilama uusan hadlin muddo 7 ah. Kajol ayaa sheegtay in kulankii u horreeyey ee Ajay Devgan ay isu sheegtay, kani waa qof saamayn ku yeelan doona noloshayda. Berigaas micna darro ma jirin, kuraas ayaan ku fadhiisannay, waxaana bilownay inaan sheekaysanno si aan caajiska uga baxno. Iyada oo ka hadlaysa nolosheeda guur ee guulaysatay waxay tidhi, Ajay aad buu ugu dulqaatay codkayga dheer. Waxa kale oo uu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaad leedahay badhan lagaa aamusiiyo. Kajol oo hadalkeeda sii wadata waxay tidhi waxaa jirta sir lagu ilaaliyo xiriirka, taasina waa dadaal, inta aad dadaalka waddo xiriirka waad sii wadi kartaa, maalinta aad joojiso isku daygana waad guuldaraysan doontaa. Weligay kama shalayn go'aankayga. Hooyaday waxay i tababartay wakhti dheer ka hor, waxayna ii sheegtay sida qof weyni yahay. Horta qofka weyni isagaa ka mas'uula go'aankiisa, samaan iyo xumaanba waxay ku imaanaysaa go'aankaaga, waana inaad ku dhiirataa inaad go'aannadaada qaadato, taasina waa sababta aan mar walba u dhegaysan jiray naftayda. Kajol waxay tidhi hooyaday way ku celcelinaysay oo waxay i bartay sida looga fikiro naftaada. Kaftan aqoonnimadayduna dabcan waxay ka timid shaqadayda, waxaan ku jiray dhammaan noocyada dareenka filimaantayda, waxaan sameeyey go'aamo badan oo aan horay loo aqoon, laakiin marnaba kama qoomamaynin. Saamaynta baraha bulshada. In badan ayaa lagu qoray baraha bulshada gabadha Kajol ee naysa, haddaba sidee bay u saamaysaa iyada iyo carruurteeda? Jawaabta su'aashan, Kajol waxay ka tidhi dadku si kasta ayay uga falceliyaan baraha bulshada. Dabcan saamayn ayay leedahay, laakiin waxaan u sheegayaa carruurta, xitaa haddii dadka qaar ay sheegaan khalad, 999 ka mid ah 1,000 qof waxay sheegeen waxyaabo wanaagsan. Waxaad raacdaa inta badan. Ha u fiirsan waxyaabaha xun. Waxa ay tidhi waxaan sidoo kale u walwalsanahay gabadhayda naysa, iyadu waa 19 jir oo keliya, waxyaabo badan ayaan ka soo baxnay oo dadan sababtoo ah ma jirin wakhtigaas baraha bulshada, waxay dareemaysaa xumaan, waxaana ku khasbanaaday in aan u sharxo intani ay tahay oo keliya fikirka 5 qof. Waa fikrad oo keliya wax micno ahna aan lahayn. Carruurtaydu waxay igu dhaheen hooyo, samee filin aadan oynayn. Kajol ayaa sheegtay in carruurteeda aysan daawan filimadeeda. Iyada oo sababta arrintan sharaxaysa waxa ay tidhi maxaa yeelay carruurtaydu aad bay ii jecel yihiin, wiilkaygu waxa uu igu yidhi hooyo aad baan kuu jeclahay, ma arki karo adiga oo oynaya. Kajol waxay tidhi ma hayn wax aan ugu jawaabo, markaa waxaan iska idhi ma arki doontid. Sida laga soo xigtay Kajol, wiilkeeda ayaa ku yidhi haddii aad samayso filimka xiga ha ku oyn. Waxaana ugu jawaabay ma dhacayso taasi. Waa in uu jiraa filin aanan oynayn. Wuxuu yidhi maxaad u samayn weyday filimada aabe oo kale sida golmaalhay. Sidoo kale Kajol ilaa had way ku raacday wiilkeeda, waayo waxay tidhi waxaan rabaa inaan sameeyo
majaajilo maadaama ay sidoo kale ka daashay oohinta. Iyada oo ka hadlaysa in carruurteedu ay ku soo biirayaan tilitaanka, waxa ay tidhi, Naysa hadda ma hayso qorshayaal caynkaas ah, laakiin marka ay doonayso in ay ku soo biirto, waannu garab istaagi doonaa.